saaxiib yaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn kuwa Soomaalida waxaa kamid ah kulamadii u dhaxeeyay maamulada Koonfur Galbeed aan iraadada siyaasiyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo ku soo gabagaboobaya xilligan in mucaaradkii qaybtood ay kala tagaan halka kuwa kale oo uu ku jiro gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isagana horay ula heshiiyay madaxweyne Lafta Gareen uu ku sii wajahan yahay magaalada Baydhabo wararkii ugu dambeeyay ee deegaanada Walaweyn iyo kuwa hoostaga ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa ee mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno dhinaca maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiintooda oo saacadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shir gaar ah uga socday sida badankiin aad ka warqabtaan madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxa uu kula soo hadlay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan halkaas waxa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo garwadeena ka ahaa kulamadaas dib la isugu keenay madaxweyne Lafta Gareen iyo gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ka shaqeeyay waxaana xilligaas wixii ka dambeeyay socday kulamo gaar ah oo u dhaxeeyay xildhibaanada muxaafadka ee garabka ku ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen kuwa Muqdisho ku sugan ayaa kulamo gaar ah waday kuwaas oo dhammaantoodba mucaaradka looga soo horjeedo sidoo kalena magaalada Baydhabo ay u tagi lahaayeen wafdi uu horkacayo gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kaas oo golaha shacabka hore u soo maamulay haddana xildhibaan ka tirsan isla golaha shacabka wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in kulamadii Muqdisho ka dhacay looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin in gudoomiye Mursal lagala shaqeeyo sidii madaxweyne Lafta Gareen uu halkaas ugu hayn lahaa sidoo kalena ka shaqeyn lahaa in mar kale golaha shacabka uu ugu soo noqon lahaa gudoomiye Mursal waxa xildhibaanada sidoo kale ay isla qaateen in dhammaan mudmudowgii ka dhax jiray madaxweyne Lafta Gareen iyo gudoomiyaha halkaas laga saaro sidoo kalena laga socdo wax walba oo horay ay markaasi ugu dhaxeeyay taasi oo keentay in ugu dambeyn lagu heshiiyo in Baydhabo uu tagi karo gudoomiye Mursal iyadoo wax shuruud ah aanan lagu xireenin sidoo kalena meesha uu doono uu magaalada Baydhabo ka maro waxa jirtay hadalhayn iyo xogo kala duwan oo soo baxay oo ku aadan madaxweyne Lafta Gareen in uu doonayo in mucaaradka qeybaha kale doonaya in halkaasi ay tagaan uu ka soo jaro dadyow qaar oo waliba madaxweyne u ah kuwaas oo uu ku jiro senator amaba xildhibaan horay uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa xilligan muuqata in madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Sakiin iyo xubno kale oo garab la xilligan ay ka quusanayaan madaxweyne Lafta Gareen laakiin ay socdaan wada hadallo iyo waanwaano u dhaxeeya villa Soomaaliya iyo xildhibaanadan iyo sidoo kale madaxweyne Lafta Gareen oo isagana lagu qancinayo in xubnahan ay tagaan gudaha magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ilaa iyo hadda xogahan helino waxa ay sheegayaan marka laga reebay in Mursal uu tagayo halkaas haddana ma jirto wax faahfaahin ah oo intaasi dheer oo ka soo baxaya aynu markan ku soo laabano degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo deegaanka Yaqbirweyn ee gobolkaas maalmihii la soo dhaafay waxa taagneyd hadalhayno xoogan oo la xiriira deegaanka Yaqbirweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaanba degmada Walaweyn ee gobolkaas hore halkaas waxa ugu dagaalamay beelo walaalo ah oo markaas isu geystay arrimo dadka Soomaaliyeed ay si weyn uga caroodeen waxaana halkaas la geeyay ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 7aad ee militariga Soomaaliya waxa halkaas ay u joogaan nabadeyn iyo inay kala dhaxgalaan beeliyalka ku dagaalamay oo waliba dhibaatooyin xoogan oo dadka argagax ku reebay isu geystay markii dambe ciidamada qalabka sida maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amartay in gacanta lagu soo dhigo shakhsiyaad ka dambeeyay in nin dhimarka loogu jiray inta ay qabteen kadibna gacmaha iyo lugaha ay ka xireen isaga oo noolna ay dab ku shubeen taasi oo keentay in dadka Soomaaliyeed ay ka kacaan arrintaas sidoo kalena ku tilmaamaan wax arxan darro oo ka baxsan bani'aadanimada ugu dambeyn ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan maxkamadda ciidamadu ayaa gacanta ku soo dhigtay ku dhawaad 10 qof kuwaas oo ku lug lahaa falal guracnaa oo ka dhacay deegaanada Yaqbirweyn iyo sidoo kale degmada Walaweyn inta u dhaxaysa garaan tuulooyin dudumaayay ilaa iyo gudud lagu magacaabo kuwaas oo weeraro hore uga dhacayna lagu dilay Allah u naxariistay dad kor u dhaafay 15 qof oo siyaabooyin kala duwan loogu kala dilay tuulooyinkaasi iyo kuwa kale oo hoostaga oo ay ku jirto warta Shakuur wixii xilligaas ka dambeeyay maxkamadda ayaa gacanta ku soo dhigtay xubnahan qaarkood oo gaaray ilaa iyo 7 xubnood dil toogasho ah ayaa lagu xukumay oo uu ku jiro nin oday ah taasi oo maxkamaddu ay ku eedeysay inuu goobjoog ka ahaa sidoo kalena ka dabqan waayay qaybna ka qaatay dilka nin dhimirka loogu jiray oo ka soo lumay ehelkiisa oo muddo 30 sano ah ay markaasi xirnaay ama uu xirnaa ugu dambeyn waxa sidoo kale maxkamaddu ay dil toogasho ku xukuntay rag maqanayaal ah oo ilaa iyo hadda ku dhumaalaysanaya hoodka deegaanka Yaqbirweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose si arintaas loo fuliyo sidoo kalena amarka maxkamadda loo fuliyo waxa la amray in la soo qabto raggaas dil toogashada ah lagu xukumay ama xitaa haddii aysan suuro gelin in meeshooda lagu toogto oo ay dagaalamaan ama xitaa isku dayaan inay ka hortagaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed
wixii xilligaas ka dambeeyay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada toddobaad ee fadhigoodu yahay deegaanada Walaweyn ilaa iyo Yaqbirweyne ayaa ku dadaalaya inay gacanta ku soo dhigaan howlgallo isdaba joog ah ayaa socda maleeshiyad halkaasi joogay ayaa la tilmaamay in isbaarooyin u tiilay laga barakiciyay ama laga kiciyay ilaa haddana meelihii ay dadku ku dhibaateyn jireen sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dab la qabadsiiyay oo la gubay ma jirto faahfaahin intaasi si dheer oo ay ciidamadu si bixiyeen laakiin waxa jiray kulamo gaar ah oo ay sameeyeen saraakiishan oo ay kula kulmeen dadka deegaanka Yaqbirweyne iyo tuulooyinka kale ee hoostaga sidoo kalena wacyigelino ay u sameeyeen taasi oo ku saabsan in cid walba oo lid ku ah ammaanka ay soo sheegaan oo ku wargeliyeen ciidanka xoogga gaar ahaan kuwa fadhigoodu halkaas yahay si looga qabto waxa sidoo kale jira hadallo kale oo iyagana ciidanka ka soo baxaya oo ku aadan in howlgalladu ay sii socon doonaan ilaa iyo gacanta looga soo dhigo xukunsanayaashan maxkamadda ciidamada qalabka sida dil toogasho ay ku xukuntay ee ku dhumaalaysanaya hoodka deegaanada Yaqbirweyne ilaa iyo tuulooyinka hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amartay in cid walba oo ka hortimaada amarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan ama xitaa meeshooda ku toogtaan waxaana sidoo kale jira hadalheena kale oo iyadana baraha bulshada ka dhaliyay dood adag oo ku aadan dad xasaanad haysta ama xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay qayb ka yihiin hurinta colaad beeleedyada halkaas ka dhacay ee lagu gubay ninkaasi dhimirka loogu jiray laguna dilay dad rayid ah oo lagu xasuuqay deegaan lagu magacaabo Gareeri oo ka tirsan duleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose subaxnimadii hore ee saaka waxaa la soo wariyay maleeshiyad hubaysan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay isku qabteen meel aan sidaasi uga fogin degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose laakiin waxa ay ahayd israasaaseen kooban oo halkaas maleeshiyadkii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed daba galeen ugu dambeynna halkaasi looga itaal roonaaday faahfaahin intaas si dheer lama bixin oo ku aadan dagaalkan iyo waxa uu salka ku hayay iyo sidoo kale qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay aanintaas kaga baxno Walaweyn duleedka deegaanka ama degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Mooyko oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa lagu soo warramay in xaaladdu ay degan tahay laakiin maalinimadii shalay dagaal aad u xoogana oo dhacay qasare kala duwan oo dhaliyay oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin lamana oga ilaa iyo hadda inta qasare ee uu geystay waxa la sheegaya in maleeshiyadkan ay isku haystaan dhulbeereed halkaas ku yaala oo maalmihii la soo dhaafay doodiisu ay aad u sii xoogeysatay laakiin ku dhawaad muddo sanad ay isku hor fadhiyaan dhinacyadan waxaase wararkaan helayno ay sheegayaan in dagaalkii shalay kadib aysan jirin wax dagaal ah oo dhacay laakiin ay ciidamadu weli is hor fadhiyaan mana jirto ilaa iyo hadda ciidan Hirshabeelle ka socda ama dawladda dhexe ee Soomaaliya ka socda oo dadkan kala dhaxgalay si loo kala fogeeyo sidoo kalena looga fogaado qasare kale oo ka dhashay dagaal dhexmara dhinacyadan dhinaca kale deegaanka Mareerey ee isla Shabeellaha Dhexe oo isagana kamid ah deegaanada ay ku dagaalameen ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo dadka deegaanka ayaa laga soo warinayaa in xiisad hor leh ay ka taagan tahay dadka deegaanka Mareerey ayaa ka baxay guud ahaan dadkii shacabka ahaa si ay kaga fogaadaan dagaal halkaasi markaasi ku dhexmara dhinacyadan waxa wararkaan helayno ay sheegayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka oo aynu la xiriirinay noo xaqiijiyeen in tuulada guud ahaanba ay ka baxeen dadkii shacabka ahaa iyaga oo la isku haysto beertii markaasi khilaafka uu ka dhashay ee waliba dagaalkii Hirshabeelle gaariga Cabdibilaaha looga qabsaday sidoo kalena askar halkaasi looga dilay dadka deegaankana qayb kamid ah iyagana ay ku dhinteen dagaalkaasi waxa wararkaan helayno ay sheegayaan in xiisad ay ka taagan tahay taasi oo mar walba laga cabsi qabo in ciidankii Hirshabeelle halkaasi markaasi ama ciidankii Hirshabeelle waliba dagaalka halkaasi ku galay mar kale ay soo laabtaan dadka deegaankana waxa ay tilmaameen inay ka cabsi qabaan in mar kale dagaal uu dhaco waxaase tuulooyinka kale ee hoostaga tuuladan Mareerey la sheegaya inay ka jirto cabsi kale oo xoogan oo iyadana ku aadan in maleeshiyadka isku haysta beertan dagaalkooda uu saameeyo gaar ahaan halka lagu magacaabo Sabuun oo kamid ah meelaha inta badan ku dhow tuuladan Mareerey lagu magacaabo horey waxa uu jiray dagaalo inay ka dhaceen kuwaas oo qasare kala duwan sababay mana jirto Hirshabeelle war ka soo baxay oo ay kaga hadlayso arrintan laakiin Google nabadeed ayaa la dhigay markii ay dagaaladaas dhaceen kadib oo dib loogu soo celiyay gaariga Cabdibilaaha ahaa ee gacanta ku dhigan dadka deegaanka halka hub kale oo la sheegay in ciidamada deegaanka ay qaateenna Hirshabeelle dadka deegaanka ay ka soo ceshatay ma jirto heshiiskaas waxa ka dhaqan galay xabad joojin ay Hirshabeelle ku dhawaaqday inta xal laga gaarayo gogashii la fidiyayna ma jirto odayaal si rasmi ah u soo wada galay oo dhinacyadan ka kala socda si looga heshiiyo beertan iyo cidda leh si rasmi ah loogu wareejiyo laakiin dadka deegaanka intooda badan waa ay ka baxeen tuuladan Mareerey lagu magacaabo oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan waxaase ku sii kordha saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya xogahan hela
walaweyn isla sidaas oo kale iyadana dadka deegaanka gaar ahaan yaqbir weyne oo looga digay inay ku biiraan ama ku milmaan maleeshiyaadka doonaya in ay wado ka dhigtaan tuuladaas ama deegaankaasi yaqbir weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo sidoo kalena ciidamada dawladdu inta badan ay gacanta ku hayaan deegaankaas iyo tuulooyinka hoostaga labadan degmo ee walaweyn iyo sidoo kale yaqbir weyne siyaasiyiinta koonfur galbeed oo kulamadooda ay ka socdaan Muqdisho oo iyagana xaaladooda la soo warinayo inay bariga dhaxayhiina barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doona lafta gareen oo ku dadaalay in mucaaradkiisu aysan tagin magaalada Baydhabo iyo sidoo kale xubnaha uu la heshiiyay oo wali iyagana iilaan ka qaba sida ay u la heshiiyeen iyo in Baydhabo sida ay doonaan ay wax uga qabsan karin warar kale oo iyagana ku aadan isla Baydhabo ayaa soo baxay laakiin barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doona idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee xogahaasi hela inta aynu ku kulmi doona saaxiibayaal qodobadan ayaa ugu waaweynaa guud ahaan wararka Soomaalida iyo xaaladda siyaasadeed ee deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya